dabkan oo ka bilowday mid ka mid ah guryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ay ku jira kaamka sayidka ee degmada Howlwadaag ayaa saameyn ka badan 10 guri oo ay degnaayeen dad danyar iyo barakacayaal isugu jiro dadka deegaanka iyo waaxda dabdamiska maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay badbaadinta nolosha dadka ku jira guryaha uu saameeyay dabka qaar ka mid ah dadka ku guriye beelay dabka ka kacay kaamka sayidka ayaa warbaahinta la hadlay ayagoona u warbixiyay qasaraha soo gaaray horta guriga bilkuliyan ba hal xaba kama badbaadin iyada waxba ayna ka badbaadin haddana waxa ay si dheerba waxyaabo aan ilmaha nolol maalmeedkooda uga raadi jira meesha iyaga basbeel haba haatee macni alaabtii iyo wixii la haystay iyo muxuu ahaa wixii oo macni noloshii dhan ahayd oo dadkay ku wada dhaqmayeen wixii dhan maartay sidii bay ku dambasadoween alxamdulillaah agalkii waa gubti wixii oo macnaha siinay waa iga gubteen kullee waxa laga qaadi hal oo waxa la sheegay oo kan santuuq la sheegay alxamdulillaah ilmaha waa ii badbaadeen gudoomiye ku xigeenka waaxda arrimaha bulshada ee maamulka degmada Howlwadaag Ibraahim Xasan Mataan iyo Cali Ismaan Maxamed gudoomiyaha kaamka sayidka oo goobta kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in uu jiro qasaaro soo gaaray dadka barakacayaasha ee ku jira kaamka sayidka wuxuu dab kacay meel loo yaqaan bilsamaadkii baar bulsho oo hadda kaam ay degeen dad badan oo soo barakacay oo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya dabkaasoo sababay qasaaro maal oo u geystay dad badan oo maganata marka hore barakacayaal ahaa markaan ku soo baxnay nasiib wanaag markiiba gurmad ayaan dirsanay intii gurmadku ka imaanayeen dadka deegaankana gacan weyn ayay ka geysteen inuu dabka damo waa masiibo amba dhici jirtay amba dalka Soomaaliya sida badan ka dhacda gaar ahaan ka dhacda qaybaha barakacayaashu ay ku sugan yihiin masiibooyinka ka dhaca mid kamid ah ayaa maanta nagu dhacday maamulka degmada Howlwadaagna si dhaqso badan ugu soo gaaray dibdimisyadii gobolka Banaadirna waxay ugu soo gaareen si badan Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.